runtii farxad bay tahay maanta xafladan dhowr waji bay farxad igu tahay. marka hore waa maalintii horeysay ee aan shaqo ahaan guda galo ee aan isu soo taagan gobolka shaqo ahaan. waxaan jeclahay inaan ka mahad celiyo erayadii iyo soo dhaweyntii mid hore iyo mid madashan ku suganba laga yiri inaan aniguna ka mahad celiyo ilaaho aad iyo aad baa u mahadsantiin. waxay mar labaad farxad igu tahay anigoo la kulmay xafiis cusub oo xariga laga jaray oo gobolka loo sameeyay. runtii iyana farxad bay ii tahay. marka waxaan xafladan oo ku saabsan xariga jarka iyo anigu aan u arko aniga laftayda soo dhaweyn laygu soo dhaweynayo oo bulshadii reer Awdal salaadiintii iyo waxgaradkii iyo cuqaashi ay dhammaan ugu soo dhaweynayaan. aniguna waxaan leeyahay waxaan kaga jawaab celin doonaa insha Allah farxadda iyo soo dhaweynta wax qabad muuqda oo insha Allah bulshada dhexdeeda ما أمي أنا ريك كجواب أيه لكن وحقبض إنا كجوابه وهدينا بدقرية تاعي هدي هرمار كتاعي هدي سودوين تبرشة تاعي هدي أي تاعي وذا شقينته بحرتشيني أنا بقول لك عشان عيه هيكل كدولتين قبل ككتيرة مد قبل يمد قبل أنا بقول لك عشان عيه سرادينته يعقاشة أنا بقول لك عشان أي أقوياء كي وحجرتك وحرتشيني إنه قبلكم كهر مرة قبل الله كره. أن كل واحد سيدي هذا الكورة كنت جبتي لا مسيح قبل كأوضل أنت حلك ضاير هي لهي إن واحد بدنا يسوق قارين لكن ما أنت واحد الحمد لله يا مرة لويدو ماشي للشرحي أيام ميساسك خوصوا يجنوا حنري بقوا قدومي وأكيد ميساسك إنه هيسنا حضرنا قرصنا يا واحد نقدر تواحد وحب لقى قبل لكن ما أنت هو مقتل الحمد لله هرمارك أيه وحقبتك لقى ضبط صعود أيام نقول لي أنا تصالح كانوا تاجنا واحد كفلينا سيدا قبل كتقدر لوجت عليه هاي إنا إنه نقول هالكن وجت على عنه waxaynu doonaynaa sida salaadiintuba ay ballan qaadeen waa furihii bulshada dawladuna talaabo qaadi mayso shicibkuna talaabo qaadi maayo hadaan suldaanku horkicin oo una ku toosin tubta toosan oo una ka leexin tubta qalooca gudoomiye sida horeba kugu ballan qaaday salaadiintu sida ay ku sheegeen baan ku ayidsanahay way ku soo dhaweynayaan way kula shaqeynayaan qaybaha bulshada kala duwanna iyaga uunba hogaano ماشي أنا قاعد كاتي يجوا ما نوديك سنان لكن حاجة حفيظية هو عارفين قدومية عصبي ونكون مرسين لكن حاجة برشلة ما أعرفها برشلة ده عارفناها كتاي قبل كأوضل وقبل كيوجو الرئي جامعات كف لقى فرص ومالنا قبل كأوضل وقبل كيوجو الرئي بيها شعبه كان لقى سمين قبل كأوضل وقبل كيوجو الرئي ودوي كان لقى سمين قبل كأوضل وقبل كيوجو الرئي أرمها برشلة أرنا ay kamid tahay dabdamiskoo kale laga sameeyo Soomaaliya way kaga dayatay taas oo dhan xagga bulshada horumar buu kareeyay hase yeeshee xagga xafiisyada ragaygi joogay ahaato intaal dari xagga naga haysata haatee kama qurux badna oo gudoomiyuhu u arkay gudoomiyuhu waxa ku xusayaa qolka xafiiska gobolka Awdal arkay aad buu uga wuxuu bari ayaa hadhay baa la lahaay halkana hadhan buu marka waxaan ka rabnaa quruxdiisa ka sugeynaa waxaan ballan qaadaynaa haddaan shaqo ka mas'uulay gobolkii aan sii joogay gudoomiyaha gobolka hadday isku duwaal yihiin iyo hadday shaqaale yihiinba in sida wanaagsan lagu shaqeeyo waxaan doonaynaa dadaal badan dhinaceeda inay ka sameeyso hawshan la dedejiso way isku socodkii baa xidhmay isku socodkii magaalada ayaa xidhmay jidkuna wuxuu noqon doonaa ilaa 3 kiiloomitir 2 kiiloomitir oo ay dawladda hoosna xoogaa ku darayso dayba bixinaysa 1 kiiloomitirna dawladda hoose community-ga
ayaa iyaguna ka qaybgeli doona jid dheer oo isku xidho 3 kilomitir oo laami ah ayuu noqon doonaa kii kale dusha ee qabyada ahaana maalin dhaweyd baanu dhammaystirnay insha Allah waxa noo haray in jidkan dhakhtarka isku xidha oo nu doonayno sanadkan 2013 isna inuu naga dhamaado intaas oo macalleeyadeedkii wada socota ayaanu insha Allah doonaynaa sanadkan 2013 wax qabadka konsulka cusub uu maarata ka dhigo haddii Ilaahay yiraahdo in gobolka ka soo jeeda inaanu gacanta midig ku hayno xukuumadda la hayno annagu ku hayno meel kastoo horumar waxaa kaloo kuu sheegaynaa guddoomiye meeshan horumar badan baa ka socda qaar gacanta lagu hayaa waa asarda iyo umuura iyo hawl badan iyo wadooyinka meesha socda oo runtii la bixiyay wadadii ugu dambeysay halka ay magaalada ka socotay magaalada wadooyinka ka socda waxa weeye dawladda hoosana qaybteeda lahayd waxa weeye qaybta kalena waxa community-ga xaafad walba iyada lafteeda ayaa lahayd oo bixinayso ay magaranaysa bixinaysay xaafadan deganahay oo kale waxa weeye guddida ayaa inaga iska soo ururinay waxa weeye kulley intii qaybta anaga naga hagaagtay ayaan bixinaynay waxa kaloo halkan taargad u wadada yareemka markay dhamaato magaranaysa ayay dib noo dhaxaysa daliya boorame hadda intuu badan xukuumadda dhexe runtii ay kabid badan ku samaysay markay dhamaato wadada ka baxayso waxyar ku jeeda waxa kaloo ka horeeya deked la yidhaha Luqaya oo kalluumaysi imika oo adduuna loo hayo arrinkeegana lagu jiro onaanu doonayno inaan farays magaalada boorame laga qabto oo aqal walba iyo guri walba aan ka daba tagno oo waxa weeyaan lacag lagu qor lagana soo qaado waxa kaloo halkaas soo taagan airportkii runtii airportka Soomaaliland maanta aad moodo in horumar badan ku yimiday ummaddu canaano weydo dabcan ay waaban arkayeen laakiin marka la yiraahdo Hargeysa iyo Berbera iyo Burcabo aan arkayna inay aad iyo aad uga muuqatay magaranaysa horumar badan uga muuqatay oo isleenahay hadda ka afraynaya waa ka boorama oo waxa weeyaan community-ga diyaar u yahay isagana haddii ayna boorka ka jafno oo kuyna sugayo ee xukuumad ahaan iyo dadweynaha bayna gacanta isku qabsan aan doonayno hawlo badan iyo wax kale oo niyuusanahayba oo caynkaas oo maanta wax ka jirta gobolkan diyaar loo yahay waxaynu ku mashquulaynaa intaynu hadhow reer filaan waxaynu ku mashquuli doonaa oo sheekadeenu noqon doontaa arrimeenu noqon doonaa wax qabad waxa weeyaan laba shay halkan ninka ina yaqaana wuu inoo yaqaanaa laakiin xaasidku dawu iska jiraa ninka hadday ninkaas leeraa waxa uu kaaga fiican yahay Soomaalida waxa uu caadaa inay sidaa ugu garaabinay wax yar oo kala ku xumaysaba ayaa u caadaa waa kelmadii uu ku dhiftay ee wasiirka yuulaha waxa weeyaan laba shay baa anaga noo caada ah maxabo ummadda wixii islaama ee nala jira iyo kolleyba aan kolleyba soo dhaweyno yaa noo caada ah islaamnimada wixii xumaynayo annagu ku xunnahay labadaa wixii islaamnimada xumaynaya dantayada oo dhan yadaan kaga horeynaa oo labada waxa weeyaan haddii la isku garaabayo waxa weeye waa loo saxayaa kulleyna alxamdulilaahi rabbil caalamiin kamana oqoon lahaa baan u maraya guddoomiyuhu sidaana ugama oqoon lahaa dii hoosta taallay ee xagga wax kordhinta iyo waxyaalaha noocaas aadaan kuu dhino ku googna waxaad ku dareen lahayd hay-adaha iyo wixii la xidhiidhaba intaa adigaan kuu dhiibnay kuu taalla yaanaan TV-ga kaga lalabin oo dad wax saluugay oo haddana sadkii loo keenay saa ayaana noqonin hoos baan kugu dhiibnay insha Allah taala wada shaqayn ku soo dhawow aanu badin maayo wixii muxuu ahaa gobolka dadkiisu sidoo u shaqeeyay iyo sida ay u kala xaraanay wad ogaan doontaa waxaan ballan qaadayna inaan kula shaqeyno rag iyo dumar waayeel iyo dhalinyaro inaan kula shaqeyno waxa kaloo jira waxa la yiri nin baa malaha boqor baa geesa lahaan jiray wuxuu yiri nin buu yiri iga xiir geesihii boqorka kolku ka xiiro xabadsi ka dambaysan wuxuu adeer sheegin khayr Allah ku siiyay uu dibro god buu la tagay hadalkii kolku qaadi kari waa intuu god qoday buu ku shubay waxa la yiraahdaa hadallada inta meelaha idaacadu way kala reebtaa marka hadallada loo dhiibo TV-yada ama saxaafada loo dhiibo Hargeysa lagu kala reebaa halka waxa ka samaysanay iyo magaalada iyada gaarsiisa ama gobolka iyaa ka samaysanay oo geesahaas iyo dibrada aanay isku kaaya gelin waxaan leenahay intaana halanood nabadgeliyo habeen dhaweyd khalkhal baa laga sameeyay intaana hala nabadgeliyo linaana waa ku dibra dhacsanaa marka meelaha hadalka iyaga loo kala reebo halkan aan isku gaarsiinay intaana waa ku daray Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii lagu sheelo
والله يسشيغا هذه لو شيغانا والله يسشيلا بالي هذه أي نشيغ وأنا جاي تشيغي وعن والله يا مرة قاشة قبل كار وعن لنا الكتوبية وعن كوسو دوين هنا قبل كأوضل بالشديسة بالكيسة سياسة ديسة دقن كيسة يدقالي سمان كوسو دوين هنا وحنا إلهي يكون معذنا إنه إن وأن أبي جعل الله ورجينا إنه إن فرما يو إنتي هركا فوقان طونا دولة ديكو الرئيسي أحمد محمد سيلاني وحنا ورنجي هو دولة رئيس البيضة حكومة دمان تاجروا الرباري إن برا صاب الرباري الله كياننا وان كسر دوين إنه وقام بلينا وحنا نقوم علينا يا إخوان نو كردي تونا إلهي أمر قبل كاني وحنا لو كل شيء ما كله ليه هاي ولو رجل هكذا اللي نحجو أريتي ودول كهلي أنت صاير غفرا waxay aad u dhaweeyaan oo aad u soo dhaweeyaan dadka gobolada kale kaga yimaada Soomaalida kale kaga timaado gobolada kale aad u soo dhaweeyaan wax rumeeyaan waana dhaqankii wanaagsanaaye ee ka soo gaarnay abiyaasheen iyo awiyaasheen in la soo dhaweeyo martida in la soo dhaweeyo safarka gobolkani waa gobolkii muhaajiriintii Jacfar bin Abu Talib soo maray marxaladu waxay ahayd qolyaha beesha dhaxaa oo wada dheer u martay sidii ay dib inoogu soo celin lahayd kollay annagii reer awdalba kama nan mid ahayn wadada laakiin gobolka awdal waxa xaqiiqa oo taariikhdu aanay dafirayn inuu isna ahaa goobtii nabadda dowladnimada quruxda wanaagga damiir wanaagsanaanta diin wanaagsanaanta waxbarashada dhammaystiran ee ilaa in dhoolii ودلكين وحكو بنانايو وقوبتي أساسك واحد يدل التاريخ لما إلاوانا أون عدنا دفري كرين عدنا حقري كرين عدنا يدي كلام مسوقي كرين دعادي هالكال لو بدو عايستينا دوكا إلى هاي نوع هيدا فلنا سدي إلى رامكا دي أي مركا مشروع قبل كمركا الله يعرف صدق مشروع بكسو هاجي شركة جيبوتي كدي شركة جيبوتي أي سوق تجيب بشري مسؤولية سومال لاند ولا سوقي waxay markaa waxa lagu qaybsaday markaa lixdii gobol Soomaaliland ba markaa mashaariicda lagu qaybsaday gobolka awdal wuxuu xaq u helay in saddex mashruuc uu helo saddexda mashruuc waxay ka koobnaayeen laba mashruuc waxay gudaha magaalada Boorama ayaa laga fuliyay midna wuxuu ahaa wado isku xidhi doonta wadada isku xidha Saylac iyo Tuqashi taasoo 2 kiiloomitir iyadana laga sameyn doono labada mashruuc ee markaa Boorama gudaheeda laga fuliyay waxa mid ahaa waddadan hadda socotay dawladda hoose hormartay ilaa camu tagta midna oo xafiiska gobolka ah marka xafiiska gobolka extension baa lagu sameeyay waxaanu xafiisyo cusub la dhisay afar xafiisyo cusub oo marka xafiiska gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeynta ku jiro qaar hore u jirayna rehabilitation baa lagu sameeyay marka maanta waxaan halka markaa u fadhinaa inaan maadaama dhismayaashii ay dhammaystirmeen aan wareejino marka mashruuca laftiisan xafiiska barsaabku saddex shay uu ka koobnaa in extension iyo rehabilitation loo sameeyo in furnishing loo sameeyo oo qalabkii loo dhigo iyo waliba qalabkii isugu jira markaa furniture-kii iyo computeradii iyo alaabtii magaalada marka dabeedna dhismihii uu dhammaystirmay waxaa ku xigay in furniture-kii la dhigay waxa hadda u harsan oo aan sugaynaa in computeradii iyo qalabkii